الرحيم سلام الله عليكم داوديال من لوبو joogtiin iyo soo badan oo daawanaysaan ku soo dhawaada qisadeena maanta oo ku soo qaadanayno YouTube-keena qiso iyo taariikh waxaad uga boganaysaan sheeko cajiib ah la yaab badan aad kaaga yaabin doontaa adigu inaad isqiimayso kugu qasbi doontaa quusta ka fogeyn doontaa sidoo kalena guul lama filaana ku horkici doontaa aan wada jaan qaadno oo aan halkan ku soo wada biirno waxa sheekadeena aan ku eegaynaa gabadhii lugta laga jaray laakiin iyadu go'aan ku gaartay in Everest ay fuusho sheekada Arunima Sinha geesiyadii ka adkaatay xanuunkii iyo quusta waa geesiyad ka adkaatay xanuunka iyo quusta waa hagaag dad badan waxa ay rumaysan yihiin in hal shil oo kugu dhaca ay soo afjari karto riyooyinkaaga laakiin waxaa jira gabar dhalinyaro ah oo markii laga jaray lugta dooratay inay nolosheeda aysan marnaba ka quusan oo ay noqoto mid guusheeda hore u sii wadata waxay dooratay riyo ay dad badan iyaga oo caafimaad qaba ay isan ku riyoon taasoo ah inay fuusho buurta Everest buurta ugu dheer adduunka magaceedu wuxuu ahaa Arunima Sinha sheekadan waxa ay ka hadlaysaa xanuun geesinimo iyo sidoo kale go'aan aan la jebi karin wajiib qof walbaahi waxay leedahay qiso u gaar ah taas oo ay ka soo fuushay jaranjarta nolosha ay maanta joogto loona baahan yahay inay taxamusho xanuunka geesinimada iyo sidoo kale adkaysi xoogan inay la timaado gabar leh riyo iyo sidoo kale hami Arunima waxay ahayd gabar dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalkaasi India waxay jecleed ciyaaraha gaar ahaan kubadda laliska waxayna lahayd hami rajo badan noloshu waxay ahayd mid caadi ah laakiin ma aysan ogeyn in hal hameen ay wax badan ka bedeli doonto nolosheeda ayna noqon doonto mid ka mid ah dadka dunidani ay si weyn u hadalhayso iyadoo oo laga hadlayo weliba horumarkeeda iyo guusha ay gaartay mararka qaar noloshu waxay isku bedeshaa daqiiqad kali ah bal eeg halkan mararka qaar noloshaada waxay isku bedeshaa daqiiqad kaliya hore ayaan kuugu sheegay haddaad qisadeena hore dib ugu laabato in go'aanka aad gaartaa hal daqiiqo hal saac hal maalin uusan noqon karin mid aad ku guuldaraysato laakiin uu yahay kii furaha guushaada noqday hamiinkii masiibada ayaan halkan ku eegaynaa sanadkii 2011 Arunima waxa ay u safraysay halka ay joogto meel ka baxsan iyada oo saareed tareen sida ay warbixinada taariikhiga ay sheegayaan waxa ay la kulantay dhacdo argagax leh oo nolosheeda si weyn u bedeshay waxa ay tareenka ay ka dhacday kadibna waxa ku dhacday dhacdo weerar oo dad weyn ay halkaasi waxyeello ka soo gaartay waxay ku dhacday xaalad aad u halis badan oo saameynta nolosheeda ay muddo la nooleed hal daqiiqo ayaa mararka qaar noqon karta mid guud ahaanba aad tijaabi karto qofka intiisa kale noloshiisa yacni hal daqiiqo ayaa noqon karta midda tijaabisa noloshaada inteeda kale oo jaangoy karta horumari karta dibna u celin karta lugtii ay weyday eeg halkan kadib dhaawac culus oo soo gaaray xaaladdeedu waxay noqotay mid aad u xun dhakhaatiirtii waxa ay ku qasbanaadeen inay jaraan mid ka mid ah lugaheeda markii ay soo toostay waxay ogaatay xaqiiqda inay adkaatay nolosheedii horena mar dambe sidii hore aysan ahaan doonin qaar waxay u arkayeen dhammaan inay gaartay xaaladdeedu meeshii ugu dambeysay ee dhammaadka laakiin dadka qaar waxa ay bedeleen bilowga cusub ee ay la jaan qaadi doonto nolosheeda iyagoo qaarkood sheegay inay aad u yaraysanayeen horumar gabadhaasi ay samayn karto iyo inay tallaabo hore u qaadi karto xanuunka oo noqday go'aan xanuunkeedii ayaa isku bedelay mid ay ku qaadato go'aanka nolosheeda kaasi oo aakhirka ka dhigi doona qofka dunida ugu saameynta badan qaybo ka mid a Arunima waxa ay la kulantay xanuun ay aad
ay uga dhuntay jihadeeda iyo sidoo kale maskaxdeedana ay gelisay jihaad aad u fara badan. dad badan ayaa islahaa mustaqbalkeeda waxa uu noqday mid aad u xumaaday, mustaqbalkeedii ciyaaraha waa uu dhammaaday ayay aaminsanaayeen. laakiin iyadu waxa ay nafteeda ku tiri, waxaan samayn doonaa waxa aan dunida ku tuso inaanan quusan weli. go-aankaas ayay mar walba nolosheeda ku qanci jirtay. waxay rabtay inay fuusho Everest. Everest saa u taqaanaan waa buurta ugu dheer ee dunida. go-aanka qofka mararka qaar ayaa ka xoog badan duruufaha ku jiro. yacni qofta go-aankiisa ayaa mararka qaar ka xoog badan duruufaha aad ku jirto. yacni haddaad go-aan gaarto, go-aanka marna ma noqonayo mid duruufaha jira ay dabri karaan. go-aanka ayaa ah midka ugu xoog badan. riyo ay dadku la yaabeen ayay la soo baxday Arunima markii ay dadka ay maqleen qorshaheeda. qaar badan way la yaabeen, way ku qosleen, wayna la tacajubeen. waayahay sidee qof aan macmal lugihiisa qaarkood yihiin oo u fuuli kara ayaa lagu yiri buurta ugu dheer dunida. Everest ma ahan buur caadi ah oo qof walbaahi ay gaari karto. waxay leedahay qabow daran, baraf culus, hawo aad u yar iyo sidoo kale daal khatar joogto ah oo ay la kulmayso qofka isku dayda inay halkaasi gaarto. laakiin Arunima ma aysan arkin caqabadaha oo keliya. waxa u muuqday guul iyo aragti ka baxsan mida dadku ay aaminsan yihiin. waxay aragtay meesha ay rabto inay gaarto oo keliya inay go-aankeedu uu noqdo, laakiin marnaba aysan niyo jabin culays kasta iyo mashaakil kasta oo ka sokeeya. waa hagaag bilowgii tababarka ayay bilowday sidii arrintaas u qaadan lahayd. dadku waxa ay sheegayeen in aysan suurtagal ahayn in tillaabooyinkaas la qaado. Arunima waxa ay bilowday tababar adag oo jidkeeda ay ku toosinayso sidii ku gaari lahayd Everest. waxay u baahnaa inay qabsato xaaladaha imaanayana wax ka barato. waxay baratay socodka buuraha, isticmaalka qalabka foolimaadka iyo sida loogu adkaysto daalka. maalin kasta waxa ay wajahaysay caqabado cusub. riyo weyn laguma gaaro rabitaanka keliya. waxay u baahan tahay diyaar garow iyo sidoo kale inay kaa go-an tahay kamiro dhalinteeda. halgankii maalin kasta ayay noqotay inay sii wado oo ay tababarkeeda ay xoojiso. tababarku wuxuu ahaa mid aad u adag. waxaa jiray maalmo ay xanuun badan dareentay, waxaa jiray maalmo ay jirkeedu daalay, laakiin waxay sii wadatay tallaabo kasta. hal tallaabo kadib tallaabo kale ayay qaadaysay. guusha weyn mararka qaar waxay ku timaadaa tallaabooyin aad u yaryar. yacni tallaabooyin aad u yaryar ayaa guusha yar ay ku timaadaa. oo mar kasta tallaabo qaad, mid kala qaad, mid kala qaad. aakhirka tallaabada ugu dambeysood qaado iyadoo lagu dayo tallaabooyinkii hore ayaa noqonaya jidkaaga guusha. safarkii Everest sanadkii 2013 Arunima waxa ay bilowday safarkii riyadeeda hore, waxayna u soo martay diyaar garow dheer. kadib waxa ay wajahaysay buurtii ugu weyneed ee dunida. jidku wuxuu ahaa mid khatar ah, qabow, daal iyo hawo ay aad u sii yaraanaysay ayaa safarkii ka dhigay mid aad u adag. mararka qaar riyadeedu waxay u dhoweed inay caqabad ay ku noqoto nolosheeda, wax weynna aysan ugu suurtogelin. mararka qaarna halkaas ayay ku sugaysay iyadoo aaminsaneed in riyadeedu ay noqonayso guusheeda ayna gaarayso inay ka baxdo. dagaalkii dhabta ahaa hadda ayay bilaabaysaa oo arrintaas ay ku gulagadayso. fulitaanka Everest ma ahan tartan awood iyo sidoo kale mid jidheed oo keliya. waa dagaal maskaxeed. waxaana jira daqiiqado yar oo daal aad dareentay, laakiin waxay xasuusatay safarkii ay ku timid. waxay xasuusatay maalintii ay lugteeda weyday. kadibna waxay istiri haddii aad intaan oo dhan
ka soo gudubtay ma quusan hana quusan hadda ee hore u soco maadaama ay go-aankaagu ahaa inaadan quusan. xasuusta halgankii hore ayaa qofka siin karta awood uu ku gudbo ugana gudbo caqabadda maanta taagan. marka aad soo xasuusato culayskii ku soo maray, dhibkaaga hore aad soo martay iyo halka maanta aad joogto, taas waxay kuu suurto gelinaysaa inaad hore u dhaqaaqdo. markaan eegno meeshii ugu sarreysay ee adduunka inay gaartay gabadhii lugta laga jaray kadib safar dheer oo adag, Arunima waxa ay gaartay meeshii ugu sarreysay buurta Everest. waxa ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee haweeney ah ee lug macmal ah wata ee ku fuusha buurta Everest. riyadii dad badan u arkayeen wax aan suurtagal ahayn waxay noqotay xaqiiq, waxaana caddaatay inay go-aanku yahay wax weyn. mararka qaar guusha ugu weyn waxa ay dhalataa meel dadka kale ay ka sheegeen inaysan arrintaasi suurtagal ahayn, aan guul lagu gaari karin. guusha ka weyn ma jirin inay halkaasi gaarto oo ay noqoto qoftii fuushay buurta Everest iyadoo weliba baahiyaha gaarka qabta. ma ahayn oo keliya buur ay fuushay, waxay ahayd calaamad, waxayna ahayd jawaab ay siisay xanuunka, shilka, quusta iyo dadkii shakiyey. mar kasta waxa ay tusinaysay in noloshu aysan ahayn wax meel gaar ah ay qoftu ay tahay inay isku dhiibto. waxay dunida u sheegtay in qofka uu ka kooban yahay dadaal iyo sidoo kale ka midho dhalin, ayna u baahan tahay in qof walbaahi ay taasi ku baraarugto. qofku ma ahan wixii uu ka lumay inuu ku quusto ama ku niyad jabo. waxa uu noqon karaa mid ka kabsada go-aanada uu gaarana oo guul weyn ka soo hooya. marka laga hadlayo inaad go-aankaagu noqdo mid midho dhalana, wuxuu ku xiran yahay juhdigaaga iyo dadaalkaaga. casharka ugu weyn ee aan ka baran karna sheekadan waxay tahay, sheekada Arunima waxa ayna baraysaa kow, duruuftu ma ahan dhammaadkaaga. waxa kugu dhacayna ma ahan qasab inay qeexdo mustaqbalkaaga. xanuunku waxa uu noqon karaa xoog aad maantay ka faa'iidaysato. waa xanuunkaaga waxaad u bedeli kartaa sabab aad uga gudubto horumar, caafimaadna aad ku gaarto. riyo weyn ha ka baqin inaad yeelato. dadku waxay ku qosli karaan riyadaada ka hor inta aysan kuu sacbin guushaada. hal tallaabo bilow. Everest hal badbaado iyo hal dadaal iyo hal tallaabo oo la qaaday kumaysa tegin. Arunima waxay ku tagtay dadaal dheer. isku day wax kasta oo Everest oo kale ah sidii aad ku gaari lahayd. Everest u qaada tusaalo, waa noloshaada halka ugu sarreysa ay tahay inaad ka gaarto. ha quusanin, mararka qaar tallaabada xigta ayay ku jirtaa guusha aad sugaysay. tallaabo haddaad qaado oo aad ku guul daraysato, ha quusanin ee aamin tallaabada xigta inay tahay halka ay guushaadii taallo. waa hagaag. gunaanadka sheekadeenna markaan eegno, Arunima Sinha waxay ahayd gabar caadi ah. kadib waxa ay la kulantay dhacdo bedeshay nolosheeda. waxa ay lumisay mid ka mida lugaheeda, waxayna la kulantay xanuun aad u fara badan. dad badan waxay filanayeen inay quusato, laakiin iyadu waxa ay dooratay inay riyo cusub ay abuurto. riyadeedii waxay ahayd Everest. tallaabo ayay qaaday, tababaro badan ayayna samaystay, xanuun badan ayay dareentay iyo daal socday muddo dheer. ugu dambeyntii waxay istaagtay meeshii ugu sarreysay ee adduunka. sheekadeedu waxa ay leedahay hal fariin oo weyn oo ay tahay inaan ku baraarugno. waana sheeko inoo wada taalla, berrina aan tusaale wada noqon karno. ha u ogolaan wax kaa lumay inay kaa qaadaan waxa aad weli noqon karto. ha u ogolaan wax kaa lumay inay kaa qaadaan waxa aad weli noqon karto. yacni haddii wax aad rabtay ama waxaad haysatay inta kaa lumeen aad ku niyad jabto oo qalbigaaga ku xumaado oo aadan go-aan ka gaarin, yacni waxay noqon kartaa inay berrito noloshaada khalqal galo, noloshaada berri culays ku yimaado. marka ha u ogolaanin wax kaa lumay inay kaa qaadaan waxa aad weli ama aad berri noqon karto. gabadha lugta laga jaray waxa ay fuushay buurta ugu dheer adduunka, sababtoo ah waxa ay diiday
inay quusato. quustu ka mid maahan nolosha. marka laga hadlayo dadka bini aadamkana waxa loo baahan yahay inay la yimaadaan dadaal. dadaalka ayaa adig ku saaran. guusha tala saare eebbe waxaad gaari doontaa meel lama filaan ah. ballanqaadyo kala duwan ayaad haysataa oo ah dadaal kastoo aad samayso eebbe inuu ku guuleynayo kuna garab taagan yahay. markasta oo dadaal la timaado ayaad guusha gaari kartaa. ma jirto qof seexday, qof aan dadaalin oo guul gaaray. mana jiro qof la oran karo waxa ay ka gudubtay xaalad adag iyadoo oo aan jirin wax dadaalo ay la timid. ogsoonow noloshu waxay tahay mid u baahan had iyo jeer leh sabir, dulqaad, taxamul, u istaagid iyo sidoo kale inaad noqoto qof aamina in tilaabo kasta oo qaado ay tahay midda isaga ku xiran. maalinta aad guulaysanay ma kuu sheegaa waa maalinta aad aaminto inaad kaligaa tahay, kaligaa wax noqon karto, kaligaa wax samayso, kaligaa tilaabo qaado, dadka aad ka tashato, aad aaminto inaad wax aad qaban karto adigu aad samayso. ogsoonow marka waxaad qaban karta aad samayso waxaad arki doontaa dad badan oo kule aniga ayaa intaan kula qabanaya, aniga ayaa intaan kaa qaatay, aniga ayaa intaan kula samaynaya. waad arki doontaa, laakiin bilowga hore nolosha markay tahay qofna ma arki doontid ku saacidaysa. waxaad arki doontaa kuwa magaalada kugu imaanaya, kuwa xafiiskaaga kugu soo gelaya, kuwa shaqadaada oo kugu leh allah shaqo wanaagsan ayaad samaysay, howl weldan hore u soco. laakiin arrintaas maxaa ka horreeyey? waxaa ka horreeya daal, waxaa ka horreeya culays, waxaa ka horreeya riyo, waxaa ka horreeya cabsi, waxaa ka horreeya welwel, waxaana ka horreeyey dhibaatooyin badan oo adiga kuu gaar ahaa. hore ayaa sheekadaada dib ugu laabato waxay ahayd dadku ma arki karaan xanuunadaada ama ma akhrin karaan, laakiin keliya waxay arki karaan sacabkaaga. marka dadku marka aad guulaysato waxaad leedahay ehel fara badan, waxaad leedahay saaxiibo fara badan, waxaad leedahay dad badan oo ku garanaya. qof kastoo maalin luuq kugu aragtay, maalin jid kugu aragtay, maalin magaalo kugu maqashay, maalin magacaaga maqashay way ku sheegan doontaa. waxay dhihi doontaa hebel aniga ayaan saaxiibnahay, hebel aniga ayaa isla soconna, hebel aniga ayaa isnaqaanay, hebel anaa iskuulka la soo dhigtay. yacni halkaas ayay kula aadi doontaa. ogsoonow mar walba adiga ayay kugu xiran tahay inaad noqoto qof dadku ay ku faanaan. adiga ayay kugu xiran tahay inaad noqoto qof laga faano. adiga ayay kugu xiran tahay inaad noqoto qof horta marka hore noloshiisa saameeya. qofka maxaa looga baahan yahay? qof walba waxaa looga baahan yahay horta marka hore isagu inuu seefgareeyo noloshiisa, isagu inuu seefgareeyo mustaqbalkaaga. maalinta aad aaminto inay jirta cid kaa dambaysa oo noloshaada iyadu qaabilsan oo iyadu noloshaada ilaalinaysa, ma jirto cid ku garab taagan. waxaad ogaataa cidda kuugu wanaagsan waa cidda runta kuu sheegta kuna tiraa kuma garab istaagayo. saas ogow. adiga maxaad helaysaa markaas? darsan kugu filan oo aad cashar ku baran karto. qiso iyo taariikh waxaan filayaa halkan inay noo noqoto goob aan duruus badan ka qaadano, goob nolosheenna bedesha, goob dadku ay si weyn uga helaan sheekooyin xiise leh. mar walba waxaan ka hadli doonaa sheekooyin ka quseeya horumarka nolosha, dadaalka, juhdiga, quus la'aanta iyo sidoo kale in qoftu ay aaminto awooddeeda, riyana ay yeelato. muhiimadda ay leedahay inaad riyo yeelato ayaa waxa ay tahay waxa ugu weyn ee noloshaada ku gadaaman. waana muhiim qof kasta inay tahay riyadeedu wax aad u wanaagsan. waxaad soo gashay iskuul, maxaa riyadaadu ahayd? inaad iskuulka dhigato, iskuulka ka baxdo, dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsigii sare, jaamacadda ay aaday, jaamacadda inaad ka baxdo, kabacdii shaqaysato, shaqo aado. inkastoo dunida ay ku kala duwan tahay habka noocaasa oo laga yaabo qofku iyadoo iskuulka dhiganaysa inay haddana shaqadeeda heli karto, laakiin markaad joogto Soomaaliya waxay kaaga baahan tahay juhdi ka badan kuwa dunida kale looga baahan yahay. waxaad u baahan tahay dadaal, dulqaad, taxamul iyo culayska kuu gaarka ah ood isku daydo horta inaad adigu xallisato. markaad culayskaaga xallisato waxaad arki doontaa mahmaahiyadii Soomaalida ahayd ee ay oran jireen qofkii quraac haysta ayay Soomaalidu qada ugu dartaa. bal eeg, waxaa jiro mid aan saaka quraacan oo aan haysan wuxuu ku quraacdo, oo aan haysan wuxuu baabuur bas ah shilimaad oo ku raaco. eeg, marka adigu aad haysato lacagta aad ku raacayso diyaaradda, mid ayaa kugu leh war hebelow hotel hebel ayaan kuu bookimaye hotelkaas deg oo halkaas cuntadiisa iyo jiifkiisa aniga ayay isaarantay. ogsoonow hotelka waxaa laga yaabaa lacagta aad ku soo fuushay tigidkaba inay maalintii ay tahay $100, laakiin maxaa tahay qof amaal la gashanayo oo la aaminsan yahay
inuu isku filan yahay haddii aan la saacidin. maalinta aad ogaato qof kastana ay ogaato inaad noqotay qof kalsooni isgeliyey, hore u dhaqaaqay, waxaad ogaan doontaa guushaadu inay tahay mid ay dadka dhammu ku daba faylayaan. qof kasta oo aaminsaneed inaad halka aad joogto cimrigaaga ku dhammaanayana waa qof iyadu aan fakerin. waa laga yaabaa dadka qaarkood inaad isku maandiintaan. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay fursado si degdega ay ku helaan oo weliba lama filaan ah. sidaas daraaddeedna ay isla mar ahaantiiba u suurto gasho inay aaminaan inaan fursadba loo baahnayn in rafaad loo maro. oo hadday arkaan adigoo rafaadaya oo dadaal samaynaya oo juhdi badan bixinaya ay kugu yidhaahdaan war waxaanoo juhdiya looma baahna, aniguba waxaas iyo waxaas ayaan helay, sidaas iyo sidaas ayaan u noolahay, laakiin adiguna waad u noolaan kartaa. maya, tiisa isagay u gaar tahay, nasiibkiisa ayuu leeyahay, qorshihiisana isaga ayuu u yaallaa. adiga waxa ku yaalla waa taada adigu ka go-aan gaar oo isku day in noloshaada ay noqoto mid go-aan leh. riyadu waa muhiim, riyo la-aanna nololi ma jirayso. riyada oo kaa halowdana ha ku niyajabin, qalbigaagana yaysan saameyn ku yeelan. gabagabada sheekadeenna qiso iyo taariikh maanta waxay noqon doontaa ha u ogolaan wax kaa lumay inay kaa qaadaan ama kaa hor istaagaan waxa aad noqon karto maalinta beriya. fadlan haddaad hore inugu soo biirin daawade, hadda inugu soo biir oo subscribe, like iyo share na sii. ina gaarsiiya meel wanaagsan oo nala dhaqaajiya youtube-keena oo ka dhiga mid aan ku gaarno hididiilo fiican iyo sidoo kale nolol farxad leh oo aan dhammaanteen halkan ku wada damaashaadno. waad mahadsantihiin daawadayaal, la jirkiinuna waa ii muhiim. mar kastana waxaan sugayaa waa garab istaaggeena iyo sidoo kale inaan halkan aan ku bahowno. mahadsanidin.